السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسوق قيب قلياشا قفل بمسب كيسان كسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو مهدنا غيا مركه هوري ururadii bulshada isku soo dubariday xafladan qiimaha badan aad baan ugu mahadnaqaynaa marka labaadna maama Faadumo Jaamac Jibriil ama Faadumo Jibriil xafladan loo qabtay lagu maamuusayo aad baan u soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo runtii Faadumo Jibriil wadanka waxay u soo qabatay inta badan reer barnaamijku waa og yahay sida injineerku sheegay mandaqada iyo meel ka baxsan waxbay u qabatay haday noqoto xagga deegaanka wax ka qabatay inta soo sano oo xitaa bilada caalamiga ku qaadatay haday noqoto nabadeyntii oo buldhig u ahayd dhisida golaha deegaanka runtii lama soo koobi karo ilaa hadana waa u taagan tahay waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqaynaa hadaf oo meeshan soo qabanqaabisay oo hadiya jeerna ay xajada si dhow wada shaqeeyaan oo markii bil joogaba ay fariinta u mariso iyagana aad baan u soo dhaweynaynaa qolkii xajadu sheegaysay dadka lagu la xisaabtamayay waxaan u maleynayaa ka hadaf baa inoo qabta oo markii dhowtaan soo galay barnaamij ay dadka ku xisaabtan siinayeen guddoomiyihii hore gobolka baarlamaankii ururadii bulshada ay leeyihiin nabadgelyada maxaa ka khaldan marka insha Allah iyaga laftooda waxaan ku boorinaynaa hawl u fiican bay hayaan inay halka ka sii wadaan kelmadda kaliya aan xaajaduna ka dhawaajisay ayaan xoojinayaa oo jaamacadda in la xoojiyo haddii horta xagga biyaha intaan ka bixin dibiyalaanta ilaahay way naga saaray si walba ha u dhacday hadda ayaa qornayd inuu biyo helo waa mahadsan yihiin cid ka soo shaqeysay cid maal gelisay iyo durdur iyo maamulaheeda dulane aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh sida uu noo sheegay injineerku muddo gaaban baa lagu gaaray laba ceel waxa ku xiga biyo gelintii hadii marka aynu biyihii helay sida xaajadu sheegtay inaynu u diyaar garowno inaynu dhulkii beerano magaalada cagaarino inaynu u diyaar garowno hadii marka aynu biyo helay xooga marka inaynu saaro sidii jaamacadda iyo waxbarashadii loo hagaajin lahaa waxa muhiim ah loo baahan yahay dadka waalidka ah jaamacadda waxa loo dhisay dadka mandaqada loo dhisay hadii hal qof magaalada ka guuro ama 5 qof ka guurto qofkii wuxuu la guurayaa dhaqaalihii uu ku bixinayay bakhaarka kii korontada ku bixinayay kii internetka ku bixinayay kii uu biilka ku soo iibsanayay marka wax magaaladii ka go'an weeye hadii sanadkii 30 reer ay magaalada ka guurto ama 40 reer magaaladii soo baabi'i mayso intee sano ayaa magaalada laga guuriyay waxyaabaha ugu waaweyn dadka uga guurayeen marka la sheego waxa ugu waaweyn biyo la'aanta hadii maanta ilaahay biyayna siiyay waxa la rabaa inaan xoojino oo waalidku xoog iska saaro sidii caruurtooda ay uga dhaadhicin lahaayeen inay waxbarashadan dhigtaan oo jaamacadda dhigtaan waxa kama war hayno markii ilmihii tago wuxuu ku oranayaa waxaan u baahanahay inaan hooyo tago Boorama ama Hargeysa jaamacaddan inay jaamacad ka fiican u helay miyaad og tahay marka waxa loo baahan yahay waalidka jaamacadda lafteeda in la xisaabtamo oo maadooyinka waalidku uu jaamacadda tago tayadeeda uu ogaado laakiin waxa la rabaa in xoog jaamacadda inaga la inoo dhisay jaamacadda waxa la inooga hiiliyay Soomaaliya Puntland oo dhan ay halka keenay laakiin waxay u baahan tahay ardayba u baahan tahay oo in runta xaqaayiq aad ogaataan waxa loo baahan yahay xoog inaynu saaro inaynu jaamacadda ardaydeena geeyno oo arday baa madhow halka ka arkaynay yiri waxaan ka iibi gobol badan baan ku nabiyo bari baan ku nabiyo mudug adi waxa loo soo doonanayo halka looga imanayo jaamacaddan way ka jaban tahay jaamacadaha kale joolaji kuma jiro wadankeena oo dhan waa hadda macdan baynu wada doonaan buurteenu galay cilmigeedina ma lihin jaamacaddeena halka inoo taala aynu ka baran lahayn waxa loo baahan yahay in xoog saaro aynu soo dhaweyno dadka inoo imanaya guriga u kareeno gabdho u qabano
أنو حل جارس كسره تنكله حاجات وأي حوجسي ووددينا وددي مقالوا ينغير يربا ودوين استلامي وده عندنا أمال قلين أنت إن وددا كوب حنينا وواح فرق ترسة وددي محلو كيني واي وقفل بالليل وددي يسوقيسا وددي حل ربنا العج قودي قف والبا قوري والبا ساحة جودو شكتي العج هدي إنه هذا كو قرنه وددي يسورو بيسا وقفك معلك العجارة لوجو قرا بخارك العجارة لوجو قرا نقول لي هدفنا وحكوا عسى الله إني تالفت هذا سيد بيه وأولاني سوحل سارين وددا واجي هورنا وحكي قيب قاتين أولانيه قف يفاستو هذا لفت ماشي كودان أدعو مهتين سلام runta cilmi baaris iyo horumarinta هدف